حسين حسن عبد اللطيف شيخ مختار iyo cabdirasaaq sheekh mukhtaar 4 sano ka hor ayay waalidkood ku waayeen degmada Qoryooley kadib markii gaari caasi ah oo qudaar siday safar u ahaa gobolka Baay ay taliska Amisom rasaas ku fureen 6 ruux oo laba ka mid ah ay ahaayeen waalidka qoyskan ayaa ku baxay kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray Ruqiya Cali Mursal iyo Sheekh Mukhtaar Cabdi Cali sida uu sharxayo cabdirasaaq sheekh mukhtaar oo ah curudka reerka. baawarka waxaa saarnaa hooyadii aabahay oo lagu kala magacaabi jiray Ruqiya Cali Mursal iyo Sheekh Mukhtaar Cabdi Cali. labada baawarka ay ku geeriyoodeen tani maalinkaas ilaa maantadan waxaan daba joognaa xuquuqdooda. nimankii Amisom ahaa iyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedka koonfur galbeed kulli way og yihiin. dad badan oo mas-uuliyiin ah dowladda ka tirsan iyo isteedka koonfur galbeed ka tirsan ayaa shaqadan wax ka ogaa kiiskan. Amisomna way og tahay ilaa ninka ugu sareeya Francesco Madera kiiskan wuu og yahay. waxayna ballan qaadeen inay magdhow ka bixinayaan. magdhowgii kiiskii 2016 ilaa maantadan uu socdo waxay nagu daaliyeen balin lagu xiraayo, maalin lagu xiraayo, bil lagu xiraayo, sanad lagu xiraayo. Allah u naxariistay marxuumiinta waxay ahaayeen beeraley deegaan ku ah Qoryooley. qarashka ka soo gala dalag ay beertaan ku maareen jiray qoyskan oo ka kooban 12. wixii xilligaas ka dambeeyay wadajirka nolosha reerka ayaa lumay maadaama tiirkii qoys isku hayay ay meesha ka baxeen. way markay dhinteen reerka waa kala daatay, caruurtii waa kala faraxatay. waxaa way kuwa yaraa ku jiray oo kuwan garbeey fadhi oo ka mid ah oo waalidiinta ay ka tageen waxbarashay u baahan yihiin, nolol ay rabaan. hooyadooda aabbahoodana Amisom baa dhaafsisay oo deegaankoodii ku dishay. dad waxay ahayn beeraley ah. in ka mid ah Muqdisho ayay u soo wareegsadeen si ay waalidkooda cadaalad ugu helaan iyagoo la kaashanayay maamulka koonfur galbeed. xildhibaanada deegaanka koonfur galbeed ku matala baarlamaanka Soomaaliya. Amisom xilligaas waxay ballan qaaday in ay bixinayaan magta dadkii ay laasay ha yeeshee waxa uu noqday go'aan aan miro dhalin afka baarkiina ku eg. annaga dowladda federaalka weli khaasatan farmaajo waxaan ka codsanaynaa inuu kiiskan u istaago oo nimankan nagala hadlo. annaga dad Shibland la masaakiina nahay, tabar ma hayno, dhibaataa nagu dhacday. dhibaatadiina dadkii hadda maanta booskii u istaaga lahaa waa asiga. nimankan Francesco iyo beesha caalamka dadka howshan qusayso inuu nagala hadlo ayaan ka codsanaynaa madaxweynaha oo arrintan jawaab degdeg oo ka bixiyo. waa codsiya naga tahay. masaakiina nahay, farmaajo waa ku codsanaynaa in hooyo iyo aabbe cadaalad helaan. hooyada iyo aabbe Amisom dishay. madaxweyne farmaajo waa ku codsanaynaa intii hooyada iyo aabbe cadaalad helaan. waxaa jira dad la mid ah qoyskan oo taliska Amisom agoon iyo rajo dhigay welina aan cadaalad helin. haajir abduqaadir RTN TV Muqdisho.